waayo wuxuu nabigu leeyahay hadday nicmo noqotana wuu sabray wuu ku mahad celinaya shakar hadday noqoto buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam dhibaatana wuu sabraya labada goormaro khayr buu helayaa buu nabigu leeyahay alayhi salaam qofka muuminkii marka ilaahay ma awood waayina adaa lagu itixaamaya waayo ilaahay muxuu ku tilmaamaya kuwa kale ilaahay wuxuu leeyahay mathalu alladina ittakhaduu min duuni illahi awliyaa كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كو إلهي عيد أنا هين هيل يا قرابة نمية تلي قرقار كالدوري با إلهي دي تساله دي مهما هدود وحويان كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وعاردي قري لستوك لبالي قري عارة محو عليها قري عارة وحبا إلهي غير كي أد كتير سطو أما مريكا كشاق أما متكلا كشاق وقوري عارو نقوري عارو كتير سنبات إلهي وحولا يعد عليك إلينا عمرته إلهي غير كي استراهدا عزي حوق يكدورة تمر كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت با إلهي قوري وحاول لي توجه العسن قوري عاربا لله سبحانه وتعالى معناه ماشي يا لمحويي qofka mu'minka dhannigu ilaahay ka qaba waa inuu fiican yahay sadaradeed baa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala murugo iyo idinku dhicin iyo ducfi iyo liidasho toor ah mu'min ilaahay ku kalsoon noqon waxaynu u baahanay marka ummadda maanta muslimiinta ee caalamka ku nool waxaad moodaa dad badan inay hami jabeen niyad jabeen xagga muslim baa lagu dilaya xagga muslim baa lagu dilaya almashkila cindana أولا إلهي وأوضا وحبا إنه مالن قرأ كعيه لكن إنك الله إنه يتحامي إنك امتحان كان يحقوك يمي بل أن هل حديث آخرين وكوى النبي كسوغان عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام حديث كيف طوبان ورين يوحوري يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت حديث كانوا فرسوا نبي محمد عليه الصلاة والسلام باوحيري waxa la arki doona ama waxa dhawaan ah waxa dhici doona ummadaha dalaalka iyo baadinimada ku sugan dunida inta isugu keen yeedhaan sida dadka xeedhada leh ay isugu yeedhaan hadii dad casuumad uu sameeyo casuumada ugu yeedho marka dadka casuumaysay oo dhan de waa casuumad adiga lagu sameeyo waana wax fudud inaad maxay qaadato cunto ka dharagto saa doonto u googoosato nabi maxamed baa wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam waxay ku dhadhowdahay inay umamka dunidu inta isugu kiin yeedhaan tusaalihiinu noqdo sidii xeedhe la wadaagaya midba gacantiisa gelinayo caalamka maanta u fiirso عالم الإسلام بقى أنت الله يسوق يدي من تدى ما ورصد ما متكلد ما طبعا اللي في ردود ده مالك قرن والبرد أنت اللي يسوق ده تجي أي كل واحد يدلي بدلوي بتبغى يكون أنت عسكري جاية متكبدن جاية بقى ما تقولي بقى أنتوا بابا كرامو بابا وحود على قاطع ولا الله يا ولا بابا ولا قميصة ولا دلا وهو النبي محمد كور رمي عليه الصلاة والسلام صحابة دي ويابين مركا وحي maskaxdooda ku soo dhacday talo waxa ay u dhacay ma marbay muslimiintu inta yaraadaan wax yar oo dabeetana la boobo ayay noqon doonaan qaalu wa min qillati nahnu yawma idin oo waxaas ma waxay ku dhacayaan bay ilaahay rasuulkiisa ma intaanu yaraano oo dadka kale bataan ayaa deena nala dafaya markaas xabadna loo qabanaya qaala bal antum yawma idin katiir buu hadana nabigu ma maalintaasi waa badantiin buu nabigu tira yari maaha تركوبكم مسلمين ده انت كور لوgu dhawaaqa waa bilyan iyo 300 milyan dad badan waxay qabaan tirakoobkaasi inuu qalad iyo 2 bilyan inaanay ka yarayn laakiin ayan kan bilyan dad ka badan oo bini aadama in inta hadana la isugu yeedho
nebigooda kolba mid 5 milyan uu caayo ama mid ka sii liitaa uu boobo ama qaado ama hagardaamaya ama isugu tagaa waa dacfi maxaa keenay saxaabadii way rumaysan kari waayeen waxay dhahay miyaanu yarnay meema yaridin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaakinakum guhaa'un ka guhaa'i sayl buu nebigu yidhi laakiin waxaad tihiin daad xoorta daadku qaado oo kale ma yaridine daad xoorta waxaa la yidhaha xashiishka iyo xumbada iyo waxaan markuu daadku meel jabsade u wado xoorkan iyo xashiishkan iyo uska gan saaran uska gani meel laguma socdo meeshuu iska yaallay wuxuu qabtaa halka daadku qabadsiiyo dad itijaah lamatiin meel uma socotaan xagga caalamku isaga socdaa unbaa idana u socotaan daad xoortu halba meel bay ka laabataa meeshuu ka laabtaba uu kala laabanaya shakli ma leh form loo yaqaano male wadada hadday soo dhuubato xoorku isku soo ururaa meel buu imanaya hadduu daadku kala ballaadho wuu kala baahaya shakli ma leh wasni ma leh miisaan ma leh oo wixii miisaan lagu dagaa dhulku tagaa kuwan xagga sare bay ordayaan daad xoorta xagga sare carartaa idan kaanamaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo cahdi inay iman doonto dadka muslimiinta iyagoo tiro badan leh ay noqon doonaan dad aan qiimo lahayn wasni lahayn afkaar lahayn mabaadi haysan waxba haysan kalbabqa dunidu waxay ku dhawaaqdana kaga daba dhawaaqa xaggii loo dhaqaaqana isaga daba socda qiimo wasniyo caalamiyana aanay ku lahaynba hadday wax sheegaan iyo hadday shiraan iyo haddaanu midnaba macno samaynaynin su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay waa maxay sababtu markaasuu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walayanzicana allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum muslimka dhabtaa waa laga cabsan jiray waayo waxaa loo yaqaana inay yihiin dad tooda ku adag saa daraaddeed bini aadamku hadduu ku og yahay qof wax iska rabi karaa ama wax iska waabin karaa ama mabda leh haddaad tahay warka lagula imanaya war macquula weeyaan oo waa qof lagu xisaabtamay laakiin haddii lagu ogyahay inaad waxba tahay war ama cidiba kuu sheegi maysa waa lagugu wadayaa ama wixii la doona lagaa yeelayaa ولذلك buu nebigu wuxuu yidhi walayanzicana allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum ilaahay wuxuu gaalada qalbiyadoodaba ka saari doonaa baqa idinka idinka baqaya mar haddii idinka lasoo hadal qaada lagu durduriyo cidi kama baqaysa buu leeyahay baqahu wuu hadhay haye wala yaqdifana allahu fi quluubikum alwahn idinkana qalbiyadiina wahni baa degi doona buu nebigu ku yidhi wahnigu luga alcarabiya wahni xanuun bay u yaqaaneen garabka ku dhaco waa loo yaqaanay wahni waxaa kaloo loo yaqaanaa ducfiga nimankana luqada carbeed way yaqaaneen carab bay hayeen laakiin waxay garan kari waayeen waxaan intuu dadka ku dhaco wahni la yidhi dadkuba uu saanu nasakhmaya maxay